سؤال صدح قفاي سوق قرين اسكميدون بي معنه دعيا شغل أمال بين ويدين دونا محي دينتو كقبتا مثلا بريهن آدلو العلن يو فوركسكا صرفكا لعجها قلاد يو موضوعا فوركسكا اللي لهذو محي دينتو كقبتا. بسم الله الرحمن الرحيم. فوركسكا يصرفكا أونلاين كا horeyna waan uga hadlay muxaadaro dheer oo numalenay hal saac iyo siyaadayna socotay ayaan hadda ka hor ka jeediyay oo aad ka helaysaan YouTube forexiska iyo waxay diintu ka qabto marka aan ka hadlayay aad looguma daadanin laakiin gadaal dambe waxaad moodaa si waxaa loo galay aan caadi ahayn maan dhawada muqdisho tagay oo culimada reer muqdisho aan saragnay Dr. Ahmed Imam iyo culimada la midka ah qaylada ugu badan ee culimada la isu keenay waxay ahayd xoolihii ay Soomaalidu lahayd oo gacan kala galay waxaan hadad sida waxaan u dhacayo hal xaqiiqadiisa baadhaan waxaa ku jira riski iyo khatar aad u badan aad u sareysa inaga waxaan ka fiirinaynaa oo keliyata sheekh bil walba waxba ii soo dhacay wax go'an baan helaya faa'iido kuusa ka imaanaysa laakiin waxay ku dambeyn doonto maanta maalin aan ahayn baa laga sheekayn doonaa horaan bay tan oo kalena soo martay dadka looga digay la kari waayay sheekh al-Baqil bixiyay sheekh al-Babaniyay sidii loogu hayay billions lacag ama Soomaali ku weeyay musameeshan hindi ku dhacday Soomaalida marka waxyaalaha qaarkood si miyira in loo galay u baahantay in laga fiirsado u baahantay forexiska ama online-ka sarifka waa xaraan wadaadka baneeyana ama masalada sawirkeedii siday u dhacdo yey wax ka qarsooyin ama adiladeeda sharciga baa wax ka qarsooyin laakiin forexiska ruuxa garanaya xaqiiqadiisa diinta iyo waxa ay ka tiri mucaamalaadka noocaasana fahmaya forex banayn maayo sababtu waxa weeye ganacsi shay asidiisaba shay ganacsi ah oo wax go'an lagu siinayo raasamaalkaagiina uu madmuun yahay dib soo gaaray oo markaad u baahato aad helayso wax xaraan bil ijmaac wax go'an ganacsiga shariicada inuu taqaano wax weeye inaad marna wax yar hesho marna wax badan hesho mar aad khasaarto laana waxay ku xidhan tahay maxaa soo bixi doono oo la garanayo laakiin ganacsi wax go'an lagu siinayo ma jiro waa mar labaad hadii raasamaalkaagu madmuun noqdo oo lagu yiraahdo raasamaalkaagu ma khasaaro ayaduna raasamaalku deyn buu isu bedelayaa deyn wixii kugu soo galana waa riba qardi waa mar saddexaad sarifkan ay ku leeyihiin waxba laga helayaa sidoo u dhacayo iyo gacanta uu ku jiro laba soo galaya riba fadlina way soo gali riba nasiiana way gashaa sarifkuna waa meelaha ugu khatarsan iyo dahabku oo ay ribadu shariicadu galisay dadka mucaamalaadka sameynayana kuwa wax idinka qaadaya ma ah waa companiya waaweyn kuwaasi ku sii xidhay afar bangi oo waaweyn oo adduunka ayaa waxan sameeya suuqiyadan marka waa barnaamij weyn oo halkan ilaa xagga isku xidhan waay faahfaahin inta ka badan hadaad u baahan tihiin ku laabta muxaadaradaas aan ku faahfaahiyay laakiin barnaamijkaasi shariicaha waa xaraan ummadana waxa ka soo gaari doona dhabar jab aan laga waaqsan karin dhaqaalaha halaga taxadar hal iska ilaali wallahu a'lam.